halkan baaq uga jeedinayaa walaalaha deegaanka shaqaaqadu ku dhex martay qadiyadooda wali jiitanku ku jiro walow fadhiyo badan laga qaatay in colaadaha la soo afjaro in xumaanta wanaag lagu bedelo in colaada kalgacal iyo walaalnimo lagu bedelo in isihilowgii iyo islaamnimadii la soo celiyo in wixii la go'aanaya ee dhiba waxa ka weyn waxa la isu yahay lagu ilaawo in ilaahay jalla wa ala hadii xadiis laga doonayo la isu naxariisto la isu hadee baid maayo la isu dhaafo waxa la kala tabanayo xisaabtan hufan isagu ceebal ma leh qof xuquuqdiisi inuu qaataa waa shay sharcigu u banaynayo laakiin go'aashada iyo samriwaaga iyo hadee baid maayo jiitanka xumaantu jiitamayso colaadu hadee baid maayo ay laabta marinayso waa shay hor istaagaya ilaahay cafigiisa jalla wa ala iyo karamkiisa iyo deeqdiisa ilaahay noo furi lahaa oo ay kamid tahay raxmaadka hadee baid maayo bisha ramadaan faraha badan oo ay kamid tahay barwaaqo ilaahay cirkeena naga siiyo jalla wa ala wala la nabi sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku leeyahay xadiis saxiixa ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال صدقة مالك من نقصامسه وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة إلهي قفك هدو عفي سامحات دميو إلهي عزي بوزي هذه شرف وما تواضع أحد إلا رفعه الله قفنا دولك اسم دغو او اسم غابيو او كبركي انا فدا اسم ilowsiyo oo nafta hadee bayd ma hayo in isdul dhigto iyo hadee bayd ma kuma khasbo dabeec iyo hadee bayd ma hayo inuu garabka u raariyo walaalihiisa muslimiinta illa rafa'ahu Allah hadu saasama ilaahay ba jalla wa ala isagana izi iyo korqaadu sameeya bulshadeenu waxay u taqaanaa qofku markuu qofka dhinaca adag tuso hadalka adag tuso hadee bayd meeriska dhicinta iyo bootada iyo maxaa dhahdaayay hadal baku ka adag yahay goobaha lagu wada hadlaya iyo mowqifka isgiijinta qof waliba tanaasulka diidayo bay dadkeenu u yaqaanaan sharaf iyo ciz iyo adag kala shariicadu waa miisaan dhaba wax kasto dunidu ku aslaaxayso iyo maxaa sharaf ahayn maxaa ciziya maxaan cizi ahayn nabi sallallahu alayhi wasallam iyo allah jalla wa ala wa balbalari ilaahay marka wuxuu tilmaamayaa qofka haduu cafi qaato ilaahay waxaan cizi ahayn ugu masiyaadiyo qofka haduu naftiisa dhul dhigo oo hadee bayd maayo isdabciyo oo adayga iyo isla weynida iyo hadee bayd maayo anafada qabiilka iyo haduu ka haro ilaahay jalla wa ala korbu qaada inaga lafteenu markaan aqliga dhabta ka shaqaysiino bini aadanka qofka u yaani cafiga badan ba u gobannimo badan waxay yiraahdaan marka la fasiray kelmadda gobannimo ama dadkaasi waa gob waxay yiraahdaan geedka gobka dadku wuu shiida dhagaxan baa lagu tuuraa isna wuxuu kugu jawaabaa midho macaan oo naftu jeceshahay oo aad macaansato marka gobannimadu waa qaabka way waana sida sharcigu ina farayo idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa kaannahu waliyyun hamim ilaahay wuxuu leeyahay jalla wa ala waxaad ku bedeshaa xumaanta wanaag waxaad ki doontaa iyadoo qofkii cadaawadeeda ka dhaxaysay uu yahay qof tol ah oo ku jecel oo hadee beedmay ku xiriirinaya oo ku hiilinaya oo hadee beedmay wanaagii uu saameeyay baad ki doontaa intaasoo aayadood oo kala duwan ilaa 3 goobood oo kala duwan baa macnaha noocaas quraanku uu ku tilmaamay marka walaalayaal waxa leh sharafta leh waxa gobannimada leh waxa wanaaga leh hadii qisaskii dadkii hore dib raacdo oo ka sheekayso waxa la isku amaanaa waxa way qofkaasi inuu hadeedmay dadkii kala dhaqaajiyay tolkii kala dareeriyay maxaa dhahdaayay xumaantii colaadii soo afsharay wanaag ku bedelay xaqiisii islawsiiyay xaqii kale iska bixiyay waxa dadka lagu amaanaa qisaska aynu ka sheekaynay abka soo gaarka dadka lagu amaanaa waa cafiga iyo sharafta iyo qofku inuu hadee beed maayo tanaasul sameeyo
laakiin ma aha waxba sharaf ma leh hebel baa gadooday hebel buu intuu u qaatay ama ciidan soo humayna ka dhigay wax sharaf oo ay leedahay ma jirto qiyaamana waa dambi iyo cadaab adduunkana hadeeba idmahayo waa sharaf dhac iyo hadeeba qiimo la'aan iyo hadeeba wilbaas iyo wilhoog weeye iyo waxa la midka ah ummadda ilaahay oo dhan qalbiga ka nacabtay qofka dagaalka horiya waxa ku faana waa in kooban oo laga yaabo inay jifi yihiin oo aan adduunna wax ka ogeyn aakhirna wax ka ogeyn laakiin dadka badankiisa iyo qofka qiimaha leh iyo qofka aqliga caadiga ku dhaqmaya waxa la ciiseeyaa waa qofku inuu nabadoon yahay qofku inuu islaaxa ka shaqeeyo qofku inuu colaadaha soo afsharo hadeeba idmahayo colaadaha uu daweeyo ilaahay jalla wa ala wuxuu leeyahay faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah